dowladda hoose xamar ayaa olole biyaha looga qaadaya ka fulisay isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho oo kulmisa degmooyinka Kaaraan iyo Yakshiid. Ololahani biyo qaadista ah waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee bilicda iyo nadaafadda gobolka Banaadir Mudane Sharmaake Caddo Turyare, waxaana goobjoog ka ahaa maamulada degmooyinka Yakshiid iyo Kaaraan. Booyadaha biyaha xambaare ee dowladda hoose xamar ayaa ka howlgalaya wadadaasi si ay dib ugu furaan isku socodka gaadiidka iyo bulshada, inkastoo xilliyada roobka ay wadadaasi hakad galaan sabab la xiriira daadadka roobka oo wadadaasi fadhiista, isla markaana dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan bulshada iyo gaadiidka. Gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ayaa ka mahadceliyay howlaha biyo qaadista oo ay dowladda hoose xamar ka fulinayso isgoyska Fagax. waxaan rajaynaynaa in bahweynta in labada degmo shacabka labada degmo in ay doorkooda ka qaataan nadiifinta iyo hagaajinta in Fagax oo labada degmo ka dhaxaysa muhiimna u ah maxaa la yiraahdaa in isu socodka in shacabka. Agaasimaha guud ee bilic socodinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir Sharmaake Caddo Turyare waxa uu ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka degmooyinka Kaaraan iyo Yakshiid in ay qayb ka qaataan xal u helista isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho. waxaan mar kale saaki dib u furi doonaa haddii Ilaahay idmo wadada isku xirta degmooyin fara badan ee isgoyska Fagax oo hadda dhabarkeyga dambe ka muuqato arkaysaan biyaha faraha badan ee yaala. waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu soo jeediyo ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka Kaaraan iyo Yakshiid inay ka qayb qaataan sidii goobtani xal loogu keeni lahaa, halkaasoo ka duwan sida hadda ay tahay oo ah in biyaha la dhaamiyo la qaado ay haddana biyihii markay yimaadaan mar kale ay yimaadaan. runtii bulshada degan hareeraha wadada waxaan ka codsan lahayn inay keenaan dhulkii lagu weynay lahaa warta si warta ay u galaan biyo fiican, wartana loogu sameeyo dibudhis weyn. runtii waxaan codsanaynaa in mar kale ay nagala shaqeeyaan bulshada deegaanka gaar ahaan qaybta degmada Kaaraan sidii warta loo weynay lahaa, keenaanna dhulkii isbeyska loogu sameey lahaa warta Fagax. runtiina waxaan rajaynaynaa in culeyskaasi maanta wixii ka dambeeya aan xal u heli doono, bulshaduna ay qaadan doonaan baaqeena ah inay nagala shaqeeyaan dibna loo celiyo bilicdii magaalada Muqdisho siday u soo noqon lahaydna aan ka wada shaqeyno. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.